bajaaj iyo gaadiid kale ayaa isku garbinaya wadadan oo ku taala Muqdisho. Waxaa soo dhow xilligii afurka, qof kastana waxa uu ku sii degdegayaa gurigiisa, balse dadka qaar ayaa looga rawaxayaa halkan. kuwani waa dhalinyaro isku xilqaantay inay afuriyaan dadka masaakiinta ah ee ka dawarsada hareeraha laamiyada Muqdisho. waana wiilal iyo gabdho ku midaysan urur la yiraahdo dan wadaag. raashin ayna siiyaan, afur wanaagsan ayna siiyaan, dhalinyarada oo na siisay ajar iyo xasanaad Allah ka siiyo, anagana soonkiisa Allah na gaarsiiyo. ma haddii ahsana idinku hayna ajar saasiin ka siiyo, muraad arisiin sahel moos iyo afurana sii. halkan waa meesha ay ku sameeyaan gelinka hore ee maalintii cuntada ay u qaybinayaan dadka masaakiinta ah dhalinyaradan, waxayna ku taallaa degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. waa tallaabo ay dhinaca istaakulaynta iyo horumarka u qaadeen, waxayna sii caawinaysaa dadaalada gurmadka iyo garab istaagga ah ee muddooyinkii ugu dambeeyay ay muujinayeen dadka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka. sidoo kale waxay afur u qaybiyaan dhalinyaradan qaar ka mid ah kaamamka ay ku nool yihiin dadka saboolka ah iyo kuwa naafada ah. waxayna hawshan bilaabeen soonkii hore, sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Deelaal oo ah hormuudka dhalintan. waxaan bilaabnay barnaamij aan ugu magac darnay afuri walaalka oo aan qabanayno sanadkii labaad, oo aan ka qabanayno xirooyinka badbaado iyo sidoo kale naafada qaranka Soomaaliyeed iyo waliba dadka xaafadooda ka gaari waayay inaan afurino. runtii ururkan waa urur dhalinyaro mar walba wuxuu ka shaqeeyaa arrimahaasi afurinta. sidoo kale waxaan guud ahaan afurinaa ilaa iyo qoysas gaarayo 260 qoys ayaan afurinaa. Cabdiraxmaan Deelaal wuxuu aaminsan yahay haddii loo muujiyo dhiirigelin iyo garab istaag inay afurin karaan inta badan dadka aan waxba haysan ee ku nool magaalada Muqdisho. mar walba qofka bini'aadamka wuxuu u baahan yahay dhiirigelin. runtii waan u mahadcelinayaa dad Soomaaliyeed ayaa mar walba nagu dhiirigeliya hawshaani oo ay ka mid yihiin walaalaha sadaqa jaariya. halkan waxaan rabaa inaan baaq ugu diro ganacsatada Soomaaliyeed ee guud ahaan dal iyo dibadda meel walba ay joogaan, iyo sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxaan rabaa halkan inaan baaq ugu diro baaqaasi inay barnaamijkan qayb ay ka noqdaan, runtii ay nagu taageeraan fikradooda iyo maalkooda. waxay tusaale u yihiin da'yartan sida ay dadka Soomaaliyeed muddooyinkii dambe ugu jihaysmayeen horumarka iyo in ay iyagu wax istaraan iyagoo aan waxba ka sugin dadyow kale oo shisheeye. Maxamuud Soo Faysane, Telefishinka Universal, Muqdisho.